wafdigii uu hogaaminayay wasiirka amuuraha gudaha Soomaaliland Cali Waraan Cade oo ay socdaalka safarkiisan ku heliyaan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Axmed Xaaji Cali Cadami, wasiirka wasaaradda dibadejinta Axmed Saciid Reegal iyo agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Salaadiin culimo iyo waxgarad ka soo jeeda deegaankan dirirtu ka dhacday ayaa waxay maanta si hordhaca u soo afmeereen wajigii koowaad ee heshiiska shaaqadii dhawaan ka dhacday deegaanka Bacaha Baadi Qariye oo dhinaca koonfur kaga beegan magaalada Ceelafweyn, iyagoo la kulmay maanta cuqaasha iyo waxgaradka labada dhinac ee shaaqadu kala dhaxmartay isla markaana waxay dhaar iyo kalsooni kaga qaadeen in ay ku qanci doonaan labadooda dhinacba heshiiska dawladda iyo cuqaashu ka gaadho arrimaha sababay isku dhacan dhinac kastana uu ciidan beeleedka ka qaado goobtan dirirtu ka dhacday nabadda iyo xasiloonidana la ilaaliyo inta heshiis sugan laga gaadhayo arrimaha sababay dirirtan labada dhinac. wuxuu kaloo carabka ku dhuftay wasiir Waraan Cade ciddii qaadan weyda go'aamadan iyo safgaradkan maanta la gaadhay in wax lagaga qaban doono gacan dawladeed. wasiir Waraan Cade oo amuurahaas ka hadlayana waxaa hadaladiisii ka mid ah imikana waxa weeye waxaan maanta u fadhinaa saddex arrimood inuu halkan ku dhamayno. kow in nabadii la xidho oo cuqaasha iyo salaadiinta iyo waxgaradka halkan fadhiya ay xidhaan oo waliba khaasatan labada qoys ee wax dhex mareen inta kalena ay shuhada iyo markhaatiyo goobjoog noqdaan. laba inamada geelashoodii dhinac walba ka soo yaacay tollaydu keentay inay halkoodii ku noqdaan oo aan dib dambaysa aagan loogu arag nin qori wax dila sita meel kale dibaba jiraanba halkanaa shaydaanku keenay lama arki karo. ciidamada qaranku berita subaxii way wareegi doonaan ninkay ku arkaan isagoo qoristo meelaha taagan keen bay odhan doonaan hadduu keeni waayana allahu sahal way kaga quluufi doonaan haddii la yidhaa. dilka kelina gole waa kaa dilka ninka beleda maangan ama qaadan waaya talada odayaasha iyo dawladda iyo awaamirta dawladda ninka kelina ogole inuu meesha ka baxa waa ninkaa. inta kale waxaynu ku haynaa bogga iyo laabta. saddex arrintaa labada beelood ay isku maandhaafeen oo la yidhi way soo noqnoqotay ama jaad ha la socoto ama baabuur ha la socoto ama siyaasad ha la socoto ama axsaab ha la socoto ama dan gaar ahaaneed ha ka dambaysee inaynu reerkaa isku wanaagsanee isdhalay inaynu ka dhex saarro oo loo eego oo aynu u saarro guddi taqaana sida looga saaro masaa'ibka beelaha dhexdooda. shirkaa waa laydin ogol inaad garnaqsataan, waa laydin ogol yahay inaad wax kala tabataan, waa laydin ogol yahay haddaan maanta ay idinka soo booday oo qarsan kari weydeen in laydinla eego. arrintaasuna insha allahu waxaa lagu qaban doonaa meel halkan dhaato Ceelafweyn baa lagu qaban doonaa oo degmadiina insha allah. Axmed Mursal, TV-ga caalamiga Universal, Ceelafweyn.